waa soo xirmay haaraan ma jiro aad iyo aad u hambalyeynaya marka labaad galmudug waa soo dhaweynaysaa nidaamka isdoorashada ururada bulshada rayidka oo saxaafadda ay ugu horeyso haddii warqado yar yar oo wiiftaa meel idinka soo gaareen ma ahan wax golaha wasiirada iyo madaxtooyada ka soo baxay wax laga tashada ma ahan galmudug waxay idin fududeysay doorashadan quruxda badan oo hadda aad u jeedaan oo askarteedii ay ku hareereysan tahay gudoomiyihii degmada ka shaqeynayo gudoomiyihii gobol ka shaqeynayo galmudug doorashada waa soo dhaweynaysaa laakiin haddaad maqashaan galmudug ee doorasho diidan midda la soo tuuraan diidaynaa galmudug madax bannaan saan doorasho madax bannaan waa midaan rabnaa annaga laakiin doorasho la soo dhiibo safara ma rabno mid ayada ka soo baxday aan rabnaa ogaada galmudug doorasho ma diidana waxay rabtaa mid ayada ka soo dhex baxday sidaan oo kaleeto oo dadka reer galmudug ay soo iqtiraaceen oo ayaga ka timid mid safara oo meel laga soo dhiibay ay diidaysaa wax kale ma diidayno waa soo dhaweynaynaa doorashada waana la shaqaynaynaa gudoomiyaha aad doorateen ilaahay hadduu idmana waa garab istaageynaa si dhabaan u garab istaageynaa anoo ku hadlayaa magaca wasiirka warfaafinta hadeerna ilaahay idankiisa aad arkayso halkan uu ka hadlayay waa idin soo dhaweynaynaa tababaradiina aan ka qayb qaadanaynaa xafiisyadiina dhismahooda aan ka qayb qaadanaynaa galmudug doorasho ma diidana waxyaalo yaryar oo tuuriyaha haddaad aragteenna xagga iska dhiga aan ka wada hadalno hadda ilaahay maada madaxaad yeelateen shalana waa lahaydeen in badan liibaan cajiib aniga koraan iska naqiin ma annaan wada xiriiri jirin maanta laakiin ilaahay hadduu yahay wixii maanta ka dambeeya waxaan samayn doonaa ninka la yidhaahdo hanad waa wada shaqayn doonaa taariikhdiisa waa la socdaa raggii idaacadda codka mudug ka shaqayn jiray inuu yahay waa la socdaa waa waxa uu ku guulaystaan u malaynaya u gacansiiseen garabkiisaan istaagaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu